gacmuhu waa labo luguhu waa labo indhuhu waa labo sanku waa labo dabnuhu waa labo dhaguhu waa labo u fiirso keliyuhu waa labo garbuhu waa labo bowdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid keliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta keliya jirka bini aadamka maamusha buu rasuulku yidhi idaa saluxat saluxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi alaa wahiya alqalb xubin baa ku jirta jirka bini aadamka hadday hagaagto jirkoo dhan baa hagaagi hadday ba'naatana jirkoo dhan baa ba'naan taasina waa qalbiga buu nebigu yidhi hadduu qalbigu hagaago qalbigu muxuu ku hagaagayaa waa ilaahay macrifadiisa hadday qalbiga macrifada ilaahay ay degto xubnaha bini aadamku waxay noqonayaan xubna marna ilaahay aan cisyaankiisa ku dhacayn marna ilaahay inay caasiyaan way adkaan maadaama xubintaasi maanta ay bukootay indhaheenni waxay rabaan bay eegayaan dhagaheenni waxay maqlaan bay dhegaysanayaan gacmaheenni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheenni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheenni meeshaan rabnaa ku bixinaynaa hadalkeennii meesha waxaan doonaan ku hadlaynaa waxaan doona xasan albasri raximahullah ayaa yidhi 30 sano maan qoslin 40 sanona maan kaftamin waxaan soo gaadhay rag iyo aqwaam waxaan soo gaadhay aan markaan la joogo aan isku malaynayay inaan anigu tuuga aan isku malaynayay buu waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkii taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadal kaale 30 sano maan qoslin buu yidhi 40 sanona hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaadhay aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sidaa leh hadday jirka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meelu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin nin culimmadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisa ayuu gaadhay tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waata dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuusayne way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buu yidhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buu yidhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratu lmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leehay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii